asalaamu calaykum. waan ku salaamay daawada meel walbo aad dunidan aad ka joogto kusoo dhawow mar kale iyo macluumaad kale oo ku saabsan basaaska iyo aqalka madaxweynaha. qaybihii gabagabada ee macluumaadkani ayaan isla soo gaarnay. waad ku mahadsantahay la socoshada barnaamijyada kala duwan aan halkan aan kusoo gudbiyo sida caafimaadka, qoyska, xigmadaha iyo sidoo kale arrimaha sirdoonka oo aan inta badan xoogga aan saarno. qaybtii hore waxay noo joogtay intii baaritaanka la waday xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Masar waxa uu soo saaray 3 Febraayo sanadkii 1979 amar looga joojinayo Cali xaaskiisa iyo carruurtiisa inay ku takrifalaan hantidooda. ilaalin ayaana laga qabtay wax kasta oo ay lahaayeen. 1 Maarso sanadkii 1979 maxkamadda sare waxay soo saartay in lala wareego dhammaan hantidii Cali iyo qoyskiisa, waxaana ay dhammeed 2 milyan iyo 200 kun oo doolarka Mareykanka. halkaa ayay inoo joogtay markana qaybta xigta iyo macluumaadka basaaska ee aqalka madaxweynaha. markii maxkamadda ay la wareegtay kiiskan loo haystay Master Cali ayaa inta badan waxaa warbaahintii qabsaday macluumaadka la xiriira in isaga maxkamad la soo taagi doono. Cali waxaa galkiisa loo wareejiyay galkii nambar 4. maxkamadda sare ee dalka ayaana waxa ay soo saartay xukunno kala duwan. markii maxkamadda ay la wareegtay dhammaan hantidii ay lahaayeen Cali iyo qoyskiisa, waxaa hadalhayntaasi ay qabsatay bahda warbaahinta. waxaana baaritaano kala duwan warbaahinta ay ku sameeyeen arrintan iyo siday u dhacday, iyadoo markii dambe ay soo bannaan baxday in Cali uu ahaa ruux sirdoon ah oo la shaqaynayay hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad. arrintaasi waxay ahayd mid ay aad u daboolayeen dowladda Masar maadaama ay doonayeen in warbaahinta aysan waxba ka ogaanin arrintan, laakiin waa ay soo shacbaxday. waxaa lagu ballamay in maxkamad la soo taago. marar badan ayaa maxkamadda la soo taagay iyada oo la daawanaya cadeymaha la xiriira muuqaaladii isaga laga duubay isaga oo qiranaya inuu ahaa ruux la shaqaynaya hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad. waxaa kaloo la soo bandhigay markii ay ku jireen xafiiskiisa isaga iyo Nasim, isla markaana laga wareysanaya macluumaadka la xiriira qaabkii ay suurtagal ugu noqotay in xiriire uu la sameeyay hay-adda Mossad isla markaana uu la shaqeeyo. maxkamad ayaa la soo taagay. waxaa maxkamadiisa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah eheladiisa iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda Masar. waxaa aad loo hadalhayay xukunkiisa iyo waxa uu noqon doono. maxkamadda sare ee dalka Masar waxaa Cali ay ku xukuntay dil, kaas oo ahaa mid daldalaad ah. arrintaas mar kale waxay qabsatay warbaahinta. markii xukunkaasi uu dhacay kadib ayaa hay-adda sirdoonka ee dalka Masar waxaa kaloo ay baadigoob ay u galeen xubno la tuhunsanaa in isaga ay la shaqaynayeen. laakiin dhammaan xubnihii la tuhmayay ee eedeymahaasi loo haystay markii baaritaano lagu sameeyey waxaa la sheegay in gebi ahaanba lagu waayay dembiyadii loo haystay. arrintii xukunka markii uu dhacayna saraakiisha ugu sarreysa madaxtooyada iyo hay-adda sirdoonka ee dalkaasi Masar ayaa kulamo gaar ah arrintan ka yeeshay. madaxweynaha dalkaasi Masar ee xilligaasi ayaa waxa uu soo hadal qaaday in xukunka dilka ee daldalaada ay tahay in laga qafiifiyo. madaxweynihii dalkaasi ayaa waxa uu fududeeyey in xukunkaasi looga dhigo 15 sano oo xarig ah iyo shaqo culus. waana la diiday in gebi ahaanba la sii daayo ama cid kale Israa'iil ay kaga bedelato maadaama uu macluumaadyo badan hayay. inkastoo isaga iyo madaxda wasiirada Israa'iil dhowr jeer ay kulmeen xilligaasi si ay u hirgeliyaan nabad dhex waarta oo dhex marta Israa'iil iyo Masar, haddana ma aysan dhicin. intaasi kadib markii xukunka uu dhacayna waxaa jiray kulamo kala duwan oo ay yeelanayeen saraakiishii hay-adda sirdoonka ee Mossad. markii xukunkaasi uu dhacay kadib madaxweyne Saadaadna uu ka diiday in gebi ahaanba la sii dayo Master Cali. haddana waxaa socday dhinaca kale kulamo duceedyo ay yeelanayeen mas-uuliyiinta Masaarida iyo sidoo kale kuwa Israa'iil, taasoo ku aadanayd in nabad waarta ay ku wada noolaadaan labada dhinac. maalmihii ugu horreysay ee wadahadalka Masaarida iyo Israa'iil ee nabadda ku saabsanaa ayay magaalada Qaahira ku kulmeen Saadaad iyo ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Israa'iil. si kedis ah oo cidna aysan filaynin ayaa mas-uuliyiintii ka socotay Israa'iil waxay Saadaad ay ka codsadeen in Masaarida ay ku soo wareejiyaan Cali Cadfi, waxaana uu ku daray intaasi ay tahay mid ka mid ah shuruudaha Israa'iil ee wadatay ee ku aadan nabad ku wada noolaanshaha labada dhinac. Master Saadaad xilligaasi waxa uu gartay in arrinta Cali Cadfi ay buur gudban ay ku noqon doonto nabadda la rabo in horey loo wado, weliba isaga oo aan diyaar u ahayn in muwaadin Masaari ah oo basaasnimo ku eedeysan Israa'iil inuu ku wareejiyo, gaar ahaan Cali Cadfi oo gurigiisa soo dhex galay isaga qof ahaan basaasay oo sirtiisa Israa'iil u gudbiyey. haddana waxaa laga yaabay inuu qorsheynayo inuu dilo. sidii caadada u ahayd Saadaad markii ay wax ka baaraan degid u baahan la weydiiyo waxa uu isku mashquuliyaa shidada beebkiisa tubaakada, isagoo arrintaasi ka baaraan degaya. wax yar kadibna si degan oo ka xumaasho ay ka muuqato ayuu ku yiri,
dalbashada cali waad la soo daahdeen, waan ka xumahay oo cali saakay ayaa la daldalay. madaxa sirdoonka ee dalka Masar oo meesha fadhiyay fariintii si fiican ayay uga daadagtay oo waa uu gartay ujeedka madaxweynaha. shirkii loo fadhiyay ayuu si tartiiba uga baxay oo xabsiga ayuu si dhaqso waxa ugu tagay calina isla markii ayaa la daldalay. isla durbadiiba waxa uu ku soo laabtay shirka isaga oo madaxweynaha u sheegay in wax walba ay hagaagsan yihiin. taasi micnaheedu waxay ahayd in shirka intii lagu guda jiray cali la daldalay, maadaama madaxweynaha si dadban fariin uu ugu sheegay taas oo ahayd in cali la daldalay dalabka Israa'iilna uu ahaa mid soo daahay. markii Israa'iil arrintaasi ay xaqiiqsatayna waxa ay noqotay mid fajac ku noqotay, isla markaana filinwaa ay ku noqotay, maadaama ay sugayeen in cali cadfi ay gacanta ay ku dhigaan isaga, maadaama uu ka tirsanaa saraakiishii hay-adda sirdoonka ee Mossad oo wax badan la shaqeeyay hay-adda sirdoonka ee Mossad. madaxweyne saadaad waxa uu wafdigii ka socday Israa'iil oo u sheegay in taasi ay tahay nasiib darro maadaama ay la soo daaheen dalabkoodana la daldalay Mr. Cali Cadfi. waxaan filayaa inaad macluumaadyo kala duwan aad ka ogaatay arrinta la xiriirta basaaskii aqalka madaxweynaha. warbixintan oo qaybo kala duwan ahayd waxaa inta badan tarjumay oo aan kaga mahadcelinayaa Suldaan Cali Aadam Americo. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Ciise Maxamuud ah, waana kaga mahadcelinaya ku xirnaanshahaada barta YouTube-ka ah ee Marcadda Show. macluumaadyo midkan la mid ah intaan ku kulmi doonno waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. maxaad ka xasuusataa sheekadan? maxayse ahayd qaybtii ugu xiisaha badneed ee adiga ku soo jiidatay? qaybta hoose aragtidaada iigu reeb. maxaad jeclaan lahayd inaan ka dhigno taxanaha kale ee soo socda? mahadsanid mar kale.